kulan ballaadhan oo lagaga hadlayay sidii loogu diyaar garoobay lahaa weynaynta xuska maalinta 18 May ee saaka lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Cergabo. kulankan oo soo qaban qaabiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo. gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal oo horreynba kulankaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahmiyadda iyo qiimaha maalinta 18 May iyo sida loogu baahan yahay shicib iyo dawladba loogu diyaar garoobo xuska maalinta 18 May iyo weynaynteeda. waxaana gudoomiyuhu intaasi ku daray in gobol walba lagu qiimeyn doono sida 18 May looga maamuusay. waana gudoomiyuhu ugu dambeyntii ugu baaqay shacbiga gobolka Sanaag inay si mug loogu diyaar garoobaan xuska maalinta xorriyadda Somaliland, isagoo halkaasna gudoomiyuhu kaga dhawaaqay guddiga qabanqaabada xuska maalinta 18 May ee gobolka Sanaag oo ka kooban 7 xubnood. gudoomiyaha guddigaasi qabanqaabada Ani Saalax Xasan oo ah gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag ayaa isaguna dhinaciisa ballan qaaday in guddigoodana ay ka soo dhalaali doonaan xilka iyo waajibaadka gudoomiyaha gobolka igmaday. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf.